hotelka Mana Guest House ee magaalada Boorama waxaa ka dhacday munaasabad si weyn loogu taageerayay musharaxa xildhibaannimo ee golaha deegaanka ee degmada Boorama ugu daadayar kana sharaxan urur siyaasadeedka ummadda mudane Cabdiqani Daawud Qalinle madashan waxaa ka soo qayb galay waxgaradka ganacsatada cuqaasha aqoon-yahanka culimaawidiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama waxaana kulankan lagu taageerayay musharaxan xildhibaannimo ee sharaxan urur siyaasadeedka ummadda ugu horeen ka hadlay mudane Cabdiqani Daawud Qalinle oo ah musharaxa xafladan taageerada loo qabtay wuxuuna ka sheekeeyay waxyaabaha horumarineed oo ku soo kordhin doono Boorama hadii uu ku guuleysto xilkan uu tartamayo anigu runtii ma soo doonaa lacag waxaan ahaa aqoon-yahan maanta ku shaqaysan kara 1200 wax ka badan oo maskaxdayda qalinayda laakiinse waxa soo doontay waxaan ogaaday inaan bulsho hogaamin karo waxaan soo hogaamiyey dugsidan intaa dugsiga min soo sheegayba waxaan ahaa doorka dugsiga hogaamintiisa mar walba kiinta hogaamiyo wuxuu ahaa jaamacadda camuud oon ahaa gudoomiyihii guud aada jaamacadda camuud anigu runtii meel soo doono lacag daawal baan wax ku cuni jiray ilaahay baa meel igu qoray oo hooyada ma wax la cuni iyo aabahay ma wax la cuni laakiin waxa soo doontay inaan bulshada hago sidoo kale qaar kamid ah ka soo qayb galayaashii madashan ayaa iyaguna waxa ay hadalo dhiirigelin ah u jeediyeen musharaxan ugu daadayar musharaxiinta xildhibaannimada golaha deegaanka Boorama ugu tartamaya sanadan anigoo sidaankii beeshan la socdo marka waan isku raacsanahay dibadii gudaba mudana Cabdiqani waxaan inta badan doorbidi karnaa in isbedelku muhiim yahay dhallinyartuna ay ficil iyo karti iyo dareen badan oo ka duwan taasi ay qabaan. I start in my aim that I come here first. I do believe that Cabdiqani will be the only one who can cover our desires because as you are at least educator and can feel our needs. gudoomiye ku-xigeenka urur siyaasadeedka ummadda Professor Qaasim Sheekh Ibrahim Tubeec oo madashan isna goobjoog ka ahaa ayaa waxa uu hadalo dhiirigelin ah u jeediyay musharaxan ugu daadayar musharaxiinta u tartamaysa xilka golaha deegaanka ee degmada Boorama marka hadana waxaan eegayay ninkani ma leeyahay bulsho ama reer ka dambeeya qabiilka ka xishoomayna markuu wanaagsan yahay waa lagu faanaa marka ninkani reer bada dhashay ururka yagu markaan abuuraynay mutacalimiin baa ku abuuray inta madaxda saroonani waa dhakhtar waa injineer waa professor waa nin kaloo dhakhtar nin kaloo injineer waxaan siray bal cilmigaan adeegsano markaan xildhibaanada xuleynayna waxaan nidhi mar haddaynu inagii cilmi qaadanay ummaddana aanu xullo dad cilmi leh dadkii cilmiga kuway noqonayaan kuwii waaweyna waxaad moodaa maskaxdooda yar gooni Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.